saxaabadii hantida badnaa waxaa ka mid ahaa saxaabigii Cabdiraxmaan ibnu Cawf oo haddana ka mid ahaa 10kii saxaabi ee jannada hal mar loogu wada bishaareeyay. Magaciisa Cabdiraxmaan ibnu Cawf ibnu Cabdi Cawf Quraysh. Hooyadii Shafaa bintu Cawf ibnu Cabdi ibnu Xaarith wayna islaamtay oo hijrootay. Dhalashadii Cabdiraxmaan wuxuu ku dhashay magaalada Maka 10 sano kadib sanadkii maroodiga caamu fiil. Cabdiraxmaan islaamnimadiisu way horeysay waxaana lagu tiriyaa 8dii ugu hor islaamtay iyo 5tii saxaabi ee ku islaamtay gacantii Abuubakar. Sanadkii 5aad soo dirista Nabiga ayay saxaabadii u hijroodeen dhulka Xabashida oo uu ka mid ahaa Cabdiraxmaan. Markay muddo yar ku sugnaayeen ayay dib ugu soo laabteen ayagoo u maleeyay in magaaladii Maka ay islaamtay. Cabdiraxmaan kumuusan laabanin dhulkii Xabashida ee wuxuu ugu sii gudbay hijradii magaalada Madiina. Kolkuu yimi magaalada Madiina ayuu Nabigu la walaalisiiyay saxaabigii Saciid ibnu Rabiic oo ka mid ahaa maalqabeennadii Madiina. Wuxuuna Saciid dhahay, walaal Cabdiraxmaanow, waxaan ahay dadka ugu hantida badan Madiina ee xoolahayga kala badh qaado. Waxaanan qabaa 2 xaas ee midaad doonto dooro waan kuu furayaa. Wuxuu dhahay, Ilaahay ha kuu barakeeyo xoolahaaga iyo qoyskaaga ee i tus suuqa. Wuxuuna Saciid tusay suuqii reer Binu Qaynuqac. Kadib wuxuu soo faa'iiday laftimireed dahab ah kuna guursaday gabadh reer Ansaar ah. Maalmo kadib ayuu Nabigu arkay isagoo busaarad ay ka muuqato. Kolkaasuu ku dhahay, waa xaggii Cabdiraxmaanow? Wuxuu yidhi, rasuulka Ilaahow, haweeney reer Ansaar ah ayaan guursaday. Nabigu wuxuu dhahay, meher ma ka bixisay? Wuxuu dhahay, laftimireed dahab ah. Wuxuu yidhi Nabigu, una allabari laxna ha ahaatee. Cabdiraxmaan wuxuu yidhi, haddaan dhagaxaanta gado waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iido dahab iyo lacag. Cabdiraxmaan wuxuu ka qayb galay dhammaan duulaankii rasuulka uu ka qayb galay. Wuxuu ka mid ahaa saxaabadii reer Badar. Dagaalkii Uxudna wuxuu ka mid ahaa saxaabadii yar ee ku soo hadhay Nabiga sallallahu calayhi wasallam isagoo lagu dhuftay 20 nabar waxaana jabtay 2diisa foolood. Sidoo kale lug ayuu ka dhaawacmay oo uu ka dhitin jiray waagii dambe. Sanadkii 5aad ee hijriyada wuxuu Nabigu sallallahu calayhi wasallam madax uga dhigay duulaankii Dawmatul Jandal iyagoo wajahay reer Binu Kilaab. Waxaana la faray inuu guursado gabadha uu dhalay boqorkoodu. Nabigu wuxuu yidhi, ibnu Cawfow, ku bax magaca Alle lana dagaalam gaalada. Kolkaad aragto taag Allahu Akbar dheh. Markaad fuushana taagadana akhri laa ilaaha illa Allah. Kolkaad ka hoobatana dheh alxamdulillaah astaghfirullah. Badina xuska salliga Nabiga kadibna guurso boqorka gabadha uu dhalay. Cabdiraxmaan wuu soo baxay isagoo wata 700 oo nin waxayna qabiilkii reer Kilaab u yabooheen islaam. Markay maalintii 3aad ahayd ayuu islaamay boqorkii qabiilkooda Asbaq ibnu Thaclaba iyo dad kaloo badan. Kadib gabadhii boqorka uu dhalay oo ay ahayd Tamaqud bintu Asbaqna waa loo hooyay. Cabdiraxmaan wuxuu kaloo goobjoog ahaa geedkii baycada ee saxaabada laga raalida noqday. Waxaa kaloo ka qayb galay furashadii Maka. Kadib Khaalid ayaa si khaldan u laayay qabiilkii reer Binu Judayma. Qabiilkaasina waxay xilligii jaahiliga dileen Cabdiraxmaan aabihii iyo Khaalid adeerkii. Markaasuu Cabdiraxmaan dhahay, Khaalidow, waxaad u laysay qabiilkan adeerka ayay dileen. Markaasuu Khaalid cadhooday oo dhahay, aabbaha ayay dileen. Kadib waa la is afdhaafay. Markaasuu rasuulku dhahay, hayga caayin asxaabtayda. Ilaah baan ku dhaartay haddii midkiin uu bixiyo buurta Uxud oo dahab ah ama mugga kafkiisa ama barhkeed uu bixiyo. Kadibna wuxuu yidhi, ha dhibina Khaalidna waa seeftii Ilaahay ee galka la'ayd ee Ilaahay ku saliday gaalada. Cabdiraxmaan oo Nabiga tuujiyay wuxuu Muqiira ibnu Shucayb yidhi, xilligii Tabuuk ayuu Nabigu aaday inuu soo xaajo guto. Kadibna saxaabadii ayuu tukaday. Kolkuu Nabigu weysadii dhamaystay ayuu salaadii soo gaadhay. Waxaana tukaday isagoo Cabdiraxmaan yahay imaamkii. Geeridii Cabdiraxmaan ibnu Cawf. Cabdiraxmaan intaanu geeriyan ka hor ayuu suuxay. Kadibna wuxuu ka sheekeeyay kolkuu soo miiroobay inuu arkay 2 malag oo adag ayna ku dhaheen, ina mari, waxaan kula tagnaa casiiska aamiinka ah. Kadib waxaa la kulmay malag oo dhahay, xaggaad ku wadaan? Waxay dhaheen, casiiska aamiinka ayaan u wadnaa. Wuxuu yidhi malagii, faraha ka qaada. Wuxuu ka mid yahay kuwii loo qoray inuu barwaaqoobo isagoo caloosha ku jira.
Cabdiraxmaan Ilaahay raalli ka ahaadee wuxuu geeriyooday sanadkii 12 ee Hijriyada isagoo da'diisu ay tahay 72 sannadood, waxaana janaasadiisa ku tukaday Cusmaan iyo Zubayr ibnu Cawaam. Waxaa kaloo ka qayb galay janaasadiisa Sacad ibnu Waqaas iyo Cali ibnu Abu Daalib. Cabdiraxmaan wuxuu ka mid ahaa maalqabeennadii haystay hantida badan. Hadduu maanta noolaan lahaa, waxay ugu yeeri lahaayeen milyaneer. Wuxuuna ahaa ganacsade xariif ku ah ganacsiga oo aad moodo in loo abuuray ganacsiga. Wuxuu ka geeriyooday 1,000 geel ah, 3,000 oo lo' ah, 100 faras oo daaq baciiq ah. Waxaa kaloo uu ka tagay dahab badan oo dadka gacantii ay ka jabtay sidii loo fagaayay. Wuxuuna ka tagay 4 haween ah, mid kastana ay heshay 80,000 oo diinaar oo dahab ah. Xoolaha badankoodu wuu sadaqaysan jiray, wuxuuna Ilaahay dartii u bixiyay xoolihiisa kala badh xilligii uu nebiga noolaa. Haddana wuxuu bixiyay 40,000 oo diinaar oo dahab ah. Waxaa kaloo uu bixiyay 500 oo faras iyo 500 oo geel ah. Sidoo kale, maalin ayuu dhul ku iibsaday 40,000 oo diinaar, kolkaasuu xoolihii oo dhan u qaybiyay ehelkii, hooyooyinkii muslimiinta iyo fuqaradii gaalada.